madaxweynaha galmudug oo maanta kormeeray garoonka diyaaradaha ugu weyn degmada Caabudwaaq. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa soo indheeyay garoonka diyaaradaha ugu weyn degmada Caabudwaaq kaasoo loo dhisayo si heer caalami ah gacantana ay ku hayso shirkad ku takhasustay dhismaha garoomada diyaaradaha. mas'uulka dhismaha garoonka ayaa xusay dhabaha diyaaradaha garoonka uu balac ahaan la mid yahay garoomada waaweyn ee Soomaaliya muddo 3 bilood ahna lagu soo afmeerayo dhismihiisa sidoo kalena la filayo inay ka soo caawirtaan diyaarado heer caalami ah. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye ayaa xusay in galmudug markii ugu horeysay heli doonto garoon heer caalami ah sidoo kalena ugu baaqay shacabka reer galmudug inay maal gashtaan iskuna tashtaan kuna dhistaan deegaanadooda. waxaan leenahay inta ugu badan airportkan waxaa dhisay jaaliyadaha dibadda iyo dadka jooga wadanka gudihiisa intaba meesha uu joogana sida hadda uu ku warbixiyay kambaniga gacanta ku hayo geel ka yahay madaxda waxa weeyaan waqti kooban gudahood inuu dhamaado inta yar dhiman iyadoo maqlaysaan waxaan leenahay jaaliyadihii ka qayb qaatay iyo dhammaan intii gacan ka geysatay inta yar oo hartay hal mar isu taaga si ay hawsha u soo dhamaato inaguna ka dawladda galmudug ahaan waxaan kari karno oo ku daraynaa dilaa yiraahdo waxaan leenahay waa airportka hadda ugu soo horeeya galmudug oo airport caalami ah oo howlgalaya oo dhameystiran marka intaas maadaama airportka ugu soo horeeyo hadda howlgalaya uu yahay inta yar oo dhiman dal iyo dibad aan isugu tagno aan dhameyn hal mar ka taqalusna insha Allah aad iyo aad ma santii